Ku dhawaad 100 muhaajiriin ah ayaa ka baxsaday xabsi ay leeyihiin kooxaha wax tahriibiye ee ka ganacsada dadka dalkaasi Liibiya. Xaruntan ayaa ku taala magaalada Bani Waliid, waxaana arrintan ka dhashay in kooxaha wax tahriibiye ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay, qaar kalena dhaawacay. Hay'adda MSF ayaa sheegtay in dhakhaatiirtooda ay daweeyeen ilaa iyo 25 ruux oo dhaawac ah. Dadka soo badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen. Dadkan soo baxsaday ayaa isugu jira Soomaali, Ethioobiyaan iyo Eritrean. Safiirka Soomaaliya ee Liibiya, Muxyidiin Maxamed Kaalmoy, oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa arrintan iyo halka ay marayso soo daadgureynta muhaajiriinta Soomaalida Liibiya waxa uu uga warramay wariyaheena Jacfar Kukaay. Si guud markaan uga warramo magafayaasha sidoodaba dhulka ay joogaan inayna dawladda xukumin dhulweynaha Liibiya intiisa badan maaragtay dawladdu weli aanay awood ku lahayn ayay magafayaasha ku sugan yihiin. meelaha ay ku haytaan waa meelo macbal ah, dad maaragtay ay ku sheegaan maxaan ku yidhaahdaa maamulada deegaanada marka iyaga ay joogaan dadka maamulada ee halkaas jooga ayay gacan saar la leeyihiin. marka guryo ayay inta loo kireeyo oo xagga xooshash baa la yidhahdaa xooshash ama guryo in dadka loo kireeyo ayaa ay dadka ku hayaan. marka mararka qaarkood waxaa suuragasha dadka meesha lagu haya waxaa u suuragasha inay hade baxsadaan ama derbiye ka boodan ama si u yeelaan ama mararka lagu soo shaqaysto oo kala loo kaxaynaya meelaha shaqaa la geenaya beero dhexdooda meelahaas ka soo baxsanayaan. waa xaalado mar walbaba dhaca, laakiin mararka qaarkood ayayna soo wacaan safaarad ahaan telefoona loo soo diraan ay yidhahdaan meel fulaan baan ka baxsanay, meel fulaan baan ku sugannahay. marka haddana si dhow maalaysa intay baabuuro usoo raacaan taksiye iyo wax usoo karaystaan ayay magaalada Tripoli caasimada yimaadaan. haddayna soo gaaraan nala soo xiriiraan waxaan isku daynaa marka ijraa'aadkoodii kale sidii ay hadday dalka usoo noqon lahaayeen aan u dhamaystirno, hadday xanuunsiin isbitaallo ula xiriirno, hadday magaalada iska joogayaan ama sidii ay sharci kumeel gaar ay u heli lahaayeen aan kala shaqayno. waxaad ii sheegtay in dhulka magafayaashu ay ku haystaan Soomaalida uu yahay meel ka fog magaalooyinka oo dawladduna ay gacanta aysan ku haynin. yaa gacanta ku haya halkaasi? kooxaha gacanta ku haya ee ka baxsan magafayaasha iyaga ma lala xaajoon karaa sidii dadkaas loo soo furan lahaa oo qolyahaasi dadka afduubka ku qabsadana tallaabo looga qaadi lahaa? dadkaas naftooda ayaa magafayaal noocyo magafayaasha ka mid ah oo waa maamulada deegaanada ka jira qaarkood. magafayaasha ayaa waxay bareen maxaan ku yidhahdaa inay